gacantaa la iska soo qabanaya, cuntaa la iska siinaya, gacantaa la iska soo qabanaya, xafaayad baa loo xiraya, hooyadii teleefon ku hadlaysa bay suuliga gelinaysaa, way isaga qubeynaysaa, dharbaaxay dabada kaga dhifanaysaa, cashqadaday soo dhigaysaa, lalaba hadli maayaba, waxbaba loo sheegi maayaba, waxaan unbuu iska arkay, wuu dhulku isku dhejinayaa, waa diidayaa, suuligaa loo wadaa, war soo bax kuu qubeynaya wasakdaada, dhab gacantii ku jira, korba intaasoo mitir bay ka sarraysaa, isagii dhanba jaahwareer iyo wuxuu iskaga jiraa waali, qub iyo qac buu ku jiraa, qayladu waa iska socotaa, markaasaa guriga wax la tuuraya, waxbaa la kharibaya, waxbaa la jebinaya, xaggay ka dhacday, xaggay ka dhaxday, waa ku dhex waalanaysaa. Yaraanta marka wixii waa inuu kusoo bilowmo. Haddii marka wixii uu kaa khaldamay, waxa ogsoonaataa ilmahan qalqaalinimada iyo dhibakan waxbuu tabaya. Qayladaadii iyo dilkaagii iyo buuqaagii iyo wareerkaagii iyo itijaah la'aantaadii iyo wuxuu soo maaha inuu meel u jeedo. Korriimadanaad wadaa so inay meel u jeedo maaha. Hadday marna gadaal aado, marna horay aado, marna bidix aado, marna midig aado, ilmuhu waa ku dhex wareegaya. haddaa mar beenu sheegto oo mar runu sheegto waa ku dhex wareeraya. haddaa mar daacadnimo ula dhaqanto, marna daacaddarra ula dhaqanto, beentuna waaba iska socotaa innaga. ilmaha afraad kasta waxaan u sheegaynaa been, waana mamnuuc, waa xaaraan ilmaha inaad been u sheegto. beenta aad qofka weyn u sheegto oo wax kala garanaya iyo beenta aad ilmaha yar u sheegto waxaa dembi badan beenta ilmaha yar aad u sheegto. beenta ilmaha yar aad u sheegto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka ilmaha been u sheega waxa alla agtiisa malaa'igtu qortaa oo kitaabka rabbi lagu qoraa samaawaadka kadaab beenlow beenlow baa lagu qoraa. faadumo beenleley, bishaare beenaley, nicmo beenaley, xamdi beenaley baa alla agtiisa loo qoraa buu yidhi. yuu sidaa ku yidhi gabar saxaabiyada oo ilmo yar oo 2 sano meelaha jira sanad timir intay gacanta ku qabatay muhim baa la yidhaahdaa yay waxay rabtay inay siiso oo ku qabato hooyo bay lahayd gurigeedu nebigu jooga calayhi salaatu wasalaam. marka intuusan u imaan buu nebigu su-aasha ka gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam. fiiri saxaabadu siday tarbiyadda u tiqiin. wuxuu ku yidhi hadduu kuu yimaado ma siinaysaa timirta aad ugu yeerayso. markaasay tiri haa yaa rasuulallah. ilmi umaba imaanba xagguu taagan yahay geeskanu taagan yahay. hooyooyinku way isticmaalaan dhaqankaa saacaddaa la furi taleefonkaa waxa la dhihi hoo. haddaad taleefonka hoo tiraahdo oo aad laabato oo aadan siin waa beenta ugu yar ilahay agtiisa kadaabaa lagu qoraya. saxaabiyaddu waxay ku jawaabtay yaa rasuulallah waa siin lahaa waa siinaya hadduu ii yimaado. wuu u yimi way siisay. wuxuu yidhi haddaadan siiseen cindallah waxa laguu qori lahaa kadaaba inaad tahay beenlawad. fiiri saxaabadu say tarbiyadda ilmaha u yaqiineen. waxa ugu weyne ilmaha ku tarbiyadayn jireenna waxa weeye jacaylka nebiga iyo cadamada ilaahay weynada alla inay baraan. waayo saxaabadu waxay fahmeen maqsadka adduunka loo joogaa inuu yahay in naar laga badbaado jannana la galo. ma aha maqsadka adduunku in xoolo la taacbado, in guryo la dhisto, in tijaar la noqdo, in nolosha lagu guulaysto. taasaa loo yaqaan guusha nolosha taasay u yaqaan. laakiin guusha nolosha qur-aankaa noo sheegaya. nebiguna saxaabada waa baray calayhi salaatu wasalaam. faman suxsixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faas wataa guul liibaan guul wataa. qofkii naar ka badbaada way adagtahay naar in laga badbaado wax sahlan maaha. jannana gala faqad faas baa alla leeyahay waxaa dhaba qofkaasi inuu guulaystay. iyaga marka manhajkaasay qaateen. tarbiyaduna cayaar kama geli jirin ilmaha. shayga koowaad ay ilmahooda ku talaali jireenna wuxuu ahaa inuu caabid noqdo oo shaakira. waa aragtay nebiyada qur-aanka waa barateen marka la isu dardaarmayaanin falaa tamuutunna antum muslimuun. idinkoo aan muslin ahayn hadhibanina bay carruurtooda kula dardaarmi jireen. maanta waa wax maaragtay aad looga naxo in gabar hooyadeed dhinac taagan oo telefoon tiktok ku hadlaysa ay leedahay aniga gaalaan ahay alla waa ku kufriyey diinta waa ka baxay laakiin hooyaday weli muslimad weeye. waana isfahamnaay oo raalli bay iiga tahay gaalnimadayda oo okay weeye xaggeeda. waxaana la gaaloobay aabbahay siduu hooyaday ula dhaqmi jiray daraaddeed. way maqlaysaa hooyadeed waa maqlaysaa way dhinac taaganta. marka waa wax laga naxo. okay ilmaha marka waxa dhibka badan ugu wacan waynu soo sheegnay. number 1 waa tarbiyad xumo dhankeena ka socota iyo aqoon darro haysata maskaxdiisa oo unugyo badani ay tabayaan wax ka maqan oo uusan fahmayn faham la'aan waa number 1. mid waxa ay la socotaa stageka ilmaha ayay la socotaa dhibbadnida ilmuhu. adduunka dhan dhaqan kasta ha lahaado buudha ha ahaado kristan ha ahaado muslim ha ahaado caddaan ha ahaado madow ha ahaado indhayar ha ahaado
laba jirka dunida dhan geeska gees waa laga qayliyey waa la isla sheegay waxa la yidhi wuu dhib badan yahay insaanku markuu 2 sano marayo waa dhib badan yahay soomaalidii hore waa tiqiin waxay yidhaahdaan nin laba jir u fuushan yahay lama xanto laba jirku caadi maaha waa caqli badan yahay waa maskax badan yahay waa u fiirsi badan yahay waa madax adag yahay maxaa u sababa ani ahaan markaan daba galay oo baaray laba jirku waxaynu madaxadayga ugu bilowma khasab maaha laba inay ku bilaabato labadu waa tiro waxaynu niri celcelisa oo laga soo qaado ilmaha laga yaabaa inuu 3 jirka ku bilaabo ama 2 sano iyo bar ku bilaabo ilmaha sanad iyo 4 bilood ku bilaabaya madaxadayga laba jirka sanad iyo 4 bilood ilmaha ku bilaaba ilmaba ilmaha uu ka madax adag yahay oo ka dhib badan yahay de'da laba jirkana markii la daba galay wuu ka fiican yahay ilmaba ilmaha uu ka miskiisan yahay taana ma isla fahmay oo nolosha waxa horumar ka gaara dadnimo yeesha go'aan adayg yeesha hal abuur yeesha ad adayg yeesha diinta ku wanaagsanaada ka aynu leenahay waa dhib badan yahay ilmaha dhibka badan waa ilmo si gaar ah alla hibo uu ku siiyey weeye waana lagugu imtixaamayaa waa inaad ka soo baxdo waa inaadan caburin waa inaadan dilin waa inaadan colaadin waa inaadan nacayb u qaadin waa inaad u aragto ilmo khatara in alla ku siiyo aad u fiican oo wanaagsan okay marka waxaynu nidhi dhibadnida number 1 waxa keenta aqoon darro ilmaha maskaxdiisa ku jirta oo isteejyadii nolosha ama heerarkii noloshu soo marayay ilaa maalintuu dhashay ayaa waxaa jira dib u dhac oo waxbuu tabayaa ka maqan sidaa aawadeed bini aadanka maadaama ay curiosity ku abuuran tahay inuu wax walba ogaado wax walba baaro wax walbana isticmaalkiisa barto suu u manaafacadsado wax walbana magaciisa barto wax walbana wuxuu yahay uu barto ayaa waxa ay kalifaysaa maadaama waxaasi maqan yihiin inuu kan ku boodo kana ku boodo kana ku boodo halkaasaa horta dhibadnidu ku imaanaysaa dhanka aqoonta labo waxaa wata heerarka nolosha oo waxaynu nidhi de waxaa jira bini aadanku markuu soo gaaro uu noqdo mid dhib badan oo qalqaaliya oo hawl badan oo madax taag badan oo dhib badan oo lugaha dhulka ku garaaca oo madaxa dhulka ku dhufta oo wax diida oo caniida waa de la soo maro ani markaan baaray waxaa u sababa ilmuhu sanadka u horeeya waa idinka arkay waa kuu jiifaa waa legdanye meeshaa dhigtaa ka soo qaadaysa hooyadu goortay umusho meeshaa saa u dhigto isagoo dhinacna uga dhaqaaqin baa soo qaadaysa naaskaa siinaysaa xafaayaddaa ka bedelaysaa meeshaa ku celinaysa xoogaa baa la ciyaaraysa la sheekaysanaysa waa khasab ilmaha in lala hadla ilmaha ma lala hadli karaa markuu dhasho haa caloosha markuu ku jiro lala hadlaa baynu nidhi ii kaadi so marka ilmihii halkaa kuuma jiifo sanad oo ma legdana guriga qolkaa aa geyso unbuu joogaa meel kale ma aadi karo waxa liya wixii adigu aa u samayso baa u samaysan isagu waxba ma qabsan karo xafaayaddaa ka bedelaysaa wixii aad ku tiraahdo cuntada goortaa siiso adiga ada u garanaya u soo qabanaya isagu ikhtiyaar ma leh xor ma aha waxaa yaroo waxa weeye malaqaaha iska jiidanayso hadba gar u wadato wixii waa istaagay jooggaagii oo kale u yeeshay socod buu bartay gurigii buu rabaa inuu baaro oo fitisho alxamdulilah ilahay waa inoo hagaajiyey tiktok baalki muxuu ahaa telegramki waxa weeye marakan markuu soo kacay oo jooggaagii yeeshay oo uu rabo carradii inuu baaro inaad ka daba harta maaha waa inaad la socoto tartiib saanta tartiib buu u qaadaya armaajo 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 halkaa laga furaa kareemkii hooyo weeye saanaa loo furaa saanaa loo marsadaa waa tusaysaa waa sanad jir waa u sheegaysaa wuu ku daawanaya wuu qoslayaa knowledgeka cilmiga barashadiisu farxad bay leedahay gaara ilmahana farxadaan caadi ahayn bay u leedahay